waad arkaysaa saasuu inoogu soo dhammaaday caafimaad wadnaha dhiigkarka maasha allah xididada wadnaha ayuu khafiifiyaa laba xaalo oo aad u adag baa wadnayaasheena la soo dirsan marka ay dhibaatadani jirto wadnaha in masalku adkaado oo muruqu adkaado oo uu dabeedna dhagax noqdo baluun haddaad afuufto oo aad bibi afuufto siday noqotaa sow markiiba ma afuufanto haddaad dhagax afuufto dhagax miyuu afuufmaa markuu masalku saa u adkaado dhibaatadaasay leedahay marka in aan masalkaa dabcino in aan xididada dhiigu maraan haddaad imika is afuuf istirahdid wax adag oo ballaadhan markiiba dabayshu way dhex maraysaa laakiin haddaad istiraahdo afuuf wax yar daamankaa ku daali markiiba waad ku xiiqi dhiiggeenu waa saas dhiigga xididaday marayaan haddii ay ballaadhan yihiin oo aanay baruuri awdin oo aanay xaydh adag xaydhaana maxaa biiya inaan cunno waxaa la yidhi baruur baa lagu dilaa inaan cunno faadka wanaagsan oo ay ka mid tahay olifal ooyashu ay ka mid tahay sisim ooyashu waxa wanaagsan baa faadka xun faadka baruurta xun baruurta wanaagsan baa disha marka iyaga laftirkooda saliidaha iyo maalin kale kasoo sheekayn doonaa maasha allah aroorta horaad cabaysaa maasha allah waad arkaysaa aroorta horaad cabaysaa mudaaweedkeen halkaas inoogu soo dhammaaday بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كان هو أقرأ محد كتقانا أقرأ عافمات كيس لغا مش كان كرو هداني ما انتورنا وضع اسنانو ما شاء الله وحليه باتيسيم أو وحلقه هلو بنانها أو كلا كجرة ما شاء الله أفر تامر بانوغا باهن هاي انت كلاو مباهنين ما شاء الله meel walba uu caawiyaa waxaynoo cunaa jilba xanuunka waxaynoo cunaa inuu xubnaha laabatooyinka u kordhiyo dheecaanada ku jira maasha allah wuxuu aad wax ugu taraa oon maanta u samaynayaa uu aad ugu fiican yahay waxa weeyaan dhiigkarku wax ka taraa qiimihiisa lama sheegi karo wuxuu dabciyaa xididada wadnaha maro oo dhan wuxuu dabciyaa ballaadhiyaa xididada dhiigu maraan dhammaantood maasha allah dhiig macaanka laftirkeeda waxbuu ka taraa oo hoos buu u dhigaa marka dawo la koobi kara maaha digsiganan maasha allah 4 midh halkan aan ku ridanaynaa iyaga ee okraha ahaa maasha allah waxaa kaloo u baahannahay waa garlic waxaan isku dayay inaan helo runtii dadku hadday had iyo jeer lagu sheego dhiigkar macaanna waa u halis markaa waxyaabo kaloo badan oo dhiig karka hoos u dhiga waan hayaa laakiin waxaan isku dayayaa inaan helo wax qofka dhiigkar kale ee macaanka lihi labadaba uu qaadan karo oo aan gaarligayada qiimaheeda lamaba koobi karo maskaxday waxu tartaa oo waxyaabaha maskaxda waxu taray ku jirtaa oo waxay caafimaadka maskaxda way caawisaa siday maskaxdu xataa u shaqayso oo ay caawisaa ma aha wadnaha un inay wax ka tartiyo dhiigkarka baruurta ridisteeda waxbay ka tartaa cayilka waxbay ka tartaa folic acid bay leedahay vitamin C bay leedahay waxa weeyaan waxay isku qolo yihiin oo ay isku reer yihiin oo isku qabiil yihiin basasha waynu ognahay basasha faa'iidadeeda basasha iyo toonta iyo waa isku family waa qolooyin isku nooc ahoo waxaa loo yaqaanaa marka waxaad antioxidant anti-inflammatory maasha allah benefitkeeda lagama sheekayn karo wadnahana waxay xididadeeda isa oo dhan iyay furtaa arterieska vesselska
xididadaas oo dhan kuwa dhiigga qaada kuwa yaryar kuwa dhiigga blumeriga la yiraahdo ee xididada waaweyn wixii ballaadhinaya oo dhan salariga ka mid ah waxyaabaha aad wax ugu tara maasha Allah dayadana inta aan uga baahanahay waan jarjarayaa saan u yaryareynayaa basash iyada waxaad mar walba inaad jarto weligaa yaalaha iyadoo duuduuban ha cunin oxygen bay qaadanaysaa markaad sidaa u jarto aad bay u fiican tahay inaad markaad sidaa u jarjarto cunto weligaa yaalaha toon isku malaasan afka ha gashanin waxa haddaad cunayso saa u jarjar yaryaree qidac yaroo walow aad yaraysaaba waxaa galaysaa oxygen buu qaadanayaa moor caafimaad buu sii helayaa marka saasay ku wanaagsan tahay hadayada afartaa midh maasha Allah digsigan aan ku ridanayaa afarteeda midh waa kuwan koob biyaan ku shubay dabkaan saarayaa iyada tani waa jinjarta wax badan laakiin tan waa option qofkii doonaya anigu imika maanta kuma darayo laakiin jinjartu way wanaagsan tahay qofkii doonaya saas inta in lagu goosanaya wax walba markay dawo noqoto wax yar baa laga qaataa inta yar oo kale anu shaahan imika iskaga darsanaya qofkii doonaya laakiin dad badan baan jeclayn oo yiri alsar baanu leenahay markay biyaha gasho runtii maasha Allah waxba ma noqoto haddaan inta yar ku darno oo aan saa u jarjarnona dhibaato ma keenayso laakiin qofkii doonayo weeyaan qofkii kale ha iska daayo qof walba isaga isku dhakhtar halkan internet doctor ma joogo qof walba in yar wax walba in yar baa laga rabaa mar hadday mudaawaad noqoto maasha Allah inta in leeg waad ku darsan kartaa shaaha hadda waa iskaga karinaynaa wax male maasha Allah hadda waa tan toontii oo khalliyaan karkariyay hadda waxaan ku darayaa okriyay ma karinaya isaga isla ma karinaya waan isku dhigayaa waan daboolayaa muddaan u daynayaa okraan ma doonayo inuu karsamo maasha Allah dawadeeni dhiikarka saasay noogu soo dhamaatay maasha Allah okraha biyaha kulul ayaa ku filan isaga waxaan ka rabaa fiiq inuu ku baxo muddo dheer baan u daynayaa inuu halka yaallo oo biyaha kulul ku baxo hadda daboolkaan u jiidaya markiiba dabayshu way dhex maraysaa laakiin haddaad istiraahdo afuuf wax yar daamankaa ku daali markiiba waad ku xiiqi dhiiggeenu waa saas dhiigga xididaday marayaan haddii ay ballaadhan yihiin oo aanay baruuri awdin oo aanay xaydh adag xaydhaana maxaa biiya inaan cunno waxaa la yidhi baruur baa lagu dilaa inaan cunno faadka wanaagsan oo ay ka mid tahay olifal ooyashu ay ka mid tahay sisim ooyashu waxa wanaagsan baa faadka xun faadka baruurta xun baruurta wanaagsan baa disha marka iyaga laftirkooda saliidaha iyo maalin kale ka soo sheekayn doonaa maasha Allah aroorta hore aad cabaysaa maasha Allah waad arkaysaa aroorta hore aad cabaysaa mudaaweedkeen halkaas inoogu soo dhamaaday